dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Gabiley ayaa waqtigan aad u liidata xaaladooda nololeed iyadoo ay la soo diristay xaalad darxumo oo la xidhiidha shaqo la'aan baasan oo ka jirta magaaladaasi Gabiley oo aan haba yaraatee lahayn ganacsi ballaaran oo ay ka shaqaysan karaan nolol maalmeedka ay quutaan kuwaasi oo qaar ka mid dadka la jaarka ay telefishinka caalamiga Hon Cable TV u xaqiijiyeen in qoysaska qaarkood aan laba cisho aanay waxba karsan iyagoo waliba qayladaan u diray xukuumadda Somaliland iyo cid kasta oo wax u tari karta dadkaasi masaakiinta ah ee ku tabaalaysan gudaha magaalada Gabiley oo xaaladooda nololeed aad u liidato dadkan danyarta ah ayaa u badan dad ka soo hayaamay deegaanada miyiga si ay nolol uga raadsadaan magaalooyinka kadib markii ay xoolihii kaga dhamaadeen abaarihii sanadkii la soo dhaafay ka dhacay deegaanada waqooyiga Somaliland maaha gobol weyn maaha ganacsi weyn ma jiro waxa weyn dad danyara oo fara badan ayaa ku nool waxaan kaariyoonay matalan leeyihiin kaariyoonihii ku shaqo tagayaan kuma soo helayaan waxaan dad jaarka iyaga oo fara badan baa jira oo dab shidanin oo laba cisho xataa aan waxba karsanin marka waxa weeye dadkii hadii ay dad danyara yihiin oo aanay ganacsiina aan jirin fiican oo ay dadkii ku faafaan waxa loo baahan yahay maamulka gobolka Gabiley ama dawladda ama maxay toolay dadkan qurba joogta ah ee reer Gabiley ama dadkan waxaysta ee reer Gabiley in ay ka war hayaan dadka danyarta ee gobolka ku nool si Ilaahay ugu naxariisto iyaguna isku naxariistaan iyaguna isku naxaan Ilaahayna ha u naxariisto iyaguna ay isku naxariistaan Ilaahayna u naxariisanaya marka waxa weeye in la iska war hayaa qurux badan dad badan baa jira oo maanta aan dab shidan oo koow aan lahayn oo laba lahayn oo saddex lahayn marka waxaan si naxariis looga codsanana dad waxaysta yihiin inay dadka gobolkooda ka war hayaan beerihii sanadka umay bixin ama caleen ha noqoto ama haruur ha noqoto xoolihii xataa sanadka xoolaha hagaagsan dadku ma haystaan marka waxa weeye waxaan doonaynaa in la iska war waxaad moodaa inay aad iyo aad amba u aragtaaba inay aad iyo aad u liitaan dadka danyarta oo aan haysan hay'ad wax u tarta cid wax tarta ganacsi wax tarta dadkuna waa dadkii ka soo cayroobay xooluhu ka baxeen awood tahlin kar waayo waxay beeraha ku qotaan waxaan oran lahaa kula talina waa in ummadda danyarta lacagtan kulay baxday ummadda danyarta waa in lagu gurmadaa oo wada la dhiso dad la dhisaa ka qiimo badan dadku afka dhulka ku wadahay dadka danyarta dad badan baa jira shaqo ma jirto waqti kulul waa lagu jiraa hawdho uma bixino dhulkan waxa ku noolaan jiray hawdho iyo beeraha la qodanay sanadku way ka bixeen marka xoolo ma laha xoolo ka tirfeeyay marka waxa doonaynaa in adduunka iyo hay'adaha caalamka ay hoos u soo eegaan dhinaca kalena xogayaha fulinta dawladda hoose ee Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abakar oo arrintan aan wax ka weydiinay ayaa sheegay in dadkaasi ay wadaan dib u dajin isla markaana hadda ay gacanta ku hayaan ma aha markii ugu horeysay ee dadkan masaakiinta ay qayladaan u diraan xukuumadda Somaliland ee waxay hore ugu direen marar dhowr ah ahaatee waxba kama suurto gelin baaqyadaasi istaba jooga ah ee xukuumadda gurmadka ka dalbanayaan ama la'aantani ka jirta Gabiley ayaa maalinta ka dambaysa si xoogaysanaysa isla markaana dadweynaha reer Gabiley si weyn u saameysay Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV Gabiley